صبلا وهو الدنيا هذا البربريج أنا هذا ده وحلو بربارية قالوا لي ليش يقطعوا بالو بربارية هذا بريكا تبغى أنا وحقارة الساعة أنا تيار العوض حق مقالة ساعة حق تشوف كان غير قد مقالة مرة وحقاني هذا هسنا لا بروني هذا وحندون يعني ندولو أضلوا دي وتيار دير نبي هرب دير نبي هرب حتى لو حلو يقارنا مش كده ربك صوماليا وحلو يقارني توبيتها qofkii waxa ku soo koray marnaba kama dhaadhacayso laakiin dhalinyarada dambe waa laga yaabaa sababta meelan arag laakiin wallahi ahdi waxaan xasuustaa anigu ilaa ay haddana igu quflan Soomaalinimadii dhabtahay Soomaalida dhabtahay waxay ku jirtaa inagu oo midowna inagoo isu tagna oo هذا لو هذا إلا ياك قرقلك وأردنا إن نجلس ونقبله وأنا رجينا يا هنا نقولك هوي هذا إنه هو اللي كرر هنا نقطع كرر بان يدا رجينا يا ولي نقطع صحيح ستيت اللي كل سنة كل ستيت اللي ستيت اللي أساسي ليه بأساسي ستيت اللي يفتي أقول سنة بقى ستيت اللي يفتي بقى أساسي لحن بيعاي وسنا وقت اللي ليش صدق هذا ولدين لا هو محرس ما ترى عالم كشنطة على الوضع على كاسو كتعين تذكر مركب هيك هذه وين في السوق تذكر حقوق هذه وده كاتب كتير إثيوبيا أي حكومته حتى وقتك تتبع وتذكر صلاة وحقوق وكذا وحقوق وجه وترى كفسي نعم لبعضهم كتير عندك ودك هذا كتير سؤال وحنا كقويين وتذكر لنا شيء لو كتير عندك كفسي تل وأفريقيا لا تسرع كتير سيدا سؤال تتغير بكسرة حبض الله نرفع نروح اسمه ولا والله يبي أبيها في أول نرفع وحنوش يصير نبلا هو حنقول عليه تستوي في جوجا وحنقول مرتين إنتي دوتين يقول يكفتو لكن تستوكي ما كشقين على إثيوبيا. أنا في واحد كوكوليس تبغى كي بالسجاش اللي السجاش لشعبية كوكوليس. ما كي برلمان كوانا كوكوليس تي وحصات يعني إثيوبيا. لو يتيه شعب كفتي لا يقع. هذا كي مركي كورا شيء ما راح يولا ويلس. لما إثيوبيا كورا يولا هي ما راح يجمعها هي تذكر مركي حكومي. لما ما تتولس وفرع إدينا كلام أحسن يكتبيه كمان شيخ إبراهيم مكة ورنا بين الهدي يسلو كتلان ستات هي حفر قف أو شعب وما لك ماشي أقول لك هو كتبيه في المدرسة هو صوماليا وراح سوقي سيد كتبيه أو بالبنية ويقول لك Why is Ethiopian killing Ogadenio? It's just why? They set them up in prisons for no reason. They have guns and killing people for no reasons. Why? Why would they do this? We still need support and help with all these people who are dying. These people are dying for no reason, just because Ethiopians killing people that are
ما شاء الله.
كل أساس الجبهة إنه مناسبات الموتور له وطبعا إن الواحد من كوجا أيام ماشي وصل استاجي مركو واحد معاون جمع دبادق أساس الجبهة والدنيا حرية أولادية أو
demi waxaan kaloo u mahadcelinayaa marti ayaa nala joogta Soomaali maaha martidaas waa Chan Grant oo ah qof u tartamaya kursi ka mid ah kursiyada magaalada Seattle City Council member ayuu ordaya haddaan in yar ka iraahdo maadaama isaga marti noo yahay in yar Ingiriis aan oranaya insha Allah haddaad iga raacdo. And we know it's important for this campaign. I get to know you while we were fighting SHA. And I think you have a good chance, and we're gonna support you. I have been supporting you. We'll be there. So thank you so much. Enjoy, and we'll be asking you to dance with those young male and females who were having fantastic dance earlier. So get to know a little bit. Maybe we need you later. Okay, salam alaikum wa rahmatullahi. waxaan ku faraxsanahay inaan caawo halkan idinkala qayb qaadanayo walaalahayga Soomaaliyeed u dagaalamaya ama taageeraya xirnimo kolayba adduunweynaha meel kasta oo aan joogno xorriyadu waa wax qaaliya waa wax aan kulligeen wada doonayno wadankan aan joogno waad ogtihiin xorriyada ayaan ku joognaa hadday noqoto Soomaalinimo hadday noqoto diintayada hadday noqoto midabkayaga waxaan halkan ku joognaa oo sidaan doonaa ugu noolahay waxa la yiraahdo xorriyada waan hadli karnaa sidaan doonaa u hadalnaa waxaan maaragtay ka dhidhiyayno waan ka hadli karnaa cidna caburin karta male marka xornimadu waa shay qaaliya waanu ognahay kulligeeyo qof ay dah ka saaran tahay male marka cid alle cidii u dagaalamaysa xorriyad waa taageeraynaa waa support garaynaa waxaan leenahay walaalayaal halganka iyo xorriyadda raadinaysaan meeshiina ka wada taa waxaan kaloo kusii darayaa waa inaan haddaanu nahay dadka ama halkan ku nool ama wadanka ku nool Soomaali haddaan nahay isku tiirsanaanta istaageeridda isgacansiinta iskaashiga muhiimadda ay leedahay iyadoo la isqoloqolaynaynin ayaan mar walba anigu ka hadlaa walaalayaal qoloqolaysiga hala joojiyo degmadan hala joojiyo wax faa'iido noo tahay male Soomaali waa hal sidii wiilasha iga horeeyay ay sheegeen haddaan ku noqdo anoo difaacaya shidane markuu lahaa martida kama uusan wadin sida wiilka walaalkay kale ugu fahmay shidana meel badan baa ka wada shaqeynay wuxuu ka waday meelaha ama xubnaha aan anagu u istaagno ama taageerno gooni markaan ka harno Soomaalinimada maan ka hadlaynin laakiin haddana qof walba shaqo uu leeyahay shaqooyinkaas darteed ayuu ka waday markuu lahaa marti kama uusan wadin Soomaali ahaan inaan marti isku nahay marti ismanin Soomaali wada nahay hal baan nahay waan istaageeraynaa mid walba haddaan ka u soo noqdo walaalayaal halkan aan isku taageerno marka ugu horeysana oo aan noqono hal haddaan halkan aan isku taageerno wadankiina wax badan baa u samayn karnaa laakiin haddaan annagu iskala qaybinno annagoo halkan joogna oonan halkan waxba isugu oolin halkanna waa ku dayacnaanaynaa wadankiina waa ku dayacnaanaynaa waana ku jiraynaa sidaas marka waxaa la leeyahay oon idinkula dardaarmayaa aan iskaashano halkan aan ka qayb galno wadankan dan ka jirta oo ah sida hadda waxaan soo dhaweynayaa waxay la soo dhaweyseen walaalkay aad u jeclahay oo ninka kaliya ma taqaanaan islaho uu ka dadaal badan yahay uu ka aqoon badan yahay wax kasta uu kaga fiican yahay waxaan idinka mahadcelinayaa soo qaybgalka ka soo qayb gasheen xafladan aan ku maamuusayno sanad guuradii 31aad ee jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya marka xigta waxaan jeclaan lahaa inaan salaam diiran u diro halyeeyada jooxo ee jiida hore ku jira kuwaasoo habeen iyo maalinba innagoo halka maanta hal saac oo waqti aynu ka soo hurnay naftooda maalkooga iyo timekooga u huray sidii ay dib ugu soo celin lahaayeen uguna dagaalami lahaayeen dadnimadeenna iyo xorriyadeenna waxaan leeyahay guulaysta meel walba joogaan salaam diiran u diro marka xigta waxaan jeclaan lahaa kulley gudoomiyihii jaaliyadda madaxdii jaaliyadda oo dhan baa iga soo horeysay hadalka wax walba oo hadduu halganka yahay haddii maaragtay taariikhda Ogaadeniya ay tahay wax walba iyaga hore uga sii hadlay markaan waxaan jeclaan lahaa oo keliya inaan ka hadlo wax yar oo ku saabsiisan doorka ay dhalinyartu ku leeyihiin community-ga aynu ku noolnahay dal iyo dibadba sidaan wada ogsoonahay horta adduunkan hadda aan ku noolnahay waxaa hogaamiya maskax iyo caqli iyo wax walbana u ah waa dhalinyarta
dhalinyartu haddii ay dadaasho ay horumartana waddankaasi uu horumaraa waddanka dhalinyartiisu ay hoos u dhacda ama dib u dhac uu ku dhacana iyagana waddankaasi dib u dhacaa sidaynu wada ogsoonnahayna hadda waddamada khaliijka carabta oo dhan isbeddel badan baa ka yimid isbeddelka waxaa ka dambeeyay waa dhalinyar waliba dhalinyartii jaamacadaha iyo waxbarashada maaragtay ku jirtay sidaas oo kale dhalinyarteena Soomaaliyeed meesha doonaya ka timaado Soomaali mid baan nahay walaalaynu nahay ulideedkeed baynu nahay ka koonfur ka yimaada iyo ka waqooyi ka yimaada iyo ka galbeed ka yimaada kulliga waxaan isugu nimaanaa hal magac oo ah Soomaalinimo hadda ka hor baa waxaan wax ka soo bartay jaamacad ku taala Ethiopia oo Harmaayo la yiraahdo idiya dhaqanka la soo bandhigi jiray markii idiya maaragtay dhaqanka la soo bandhigay ummadda Soomaaliyeed marka loo yeerayo waxaan aad kaga duwanayn baa jirta qowmiyadaha kale hadda Ethiopia ku midoobay marka loo yeerayo waxaa la jiray waa waddanka kaliya hal diin iyo hal dhaqan iyo hal af wax walba wadaaga waddanka kaliya sababtoo marka hadda oramo oo kaliya marka la yiraahdo Ethiopia ayaa waxay kala leeyihiin maaragtay mid ka yimaada Jima iyo mid maaragtay Hargeysa iyaga South Africa innagu laakiin innagu East Africa waddanka hadii isku keen daro inta aan leeyahay kala go'ay waddanka ugu weynaa waxaan hadana nahay waddanka kaliya ee diin iyo dhaqanba maaragtay aan midayno laakiin waxay nasiib darro ka dhacday waxa la inaga soo weeraray dhankii qabiilka waxa la yiraahdo adigu qolada baa tahay adigu qolada baa tahay adigu qolada baa tahay kadib maanta Soomaaliya halkaynu marayno way ognahay dhamaanteen waddan ama maamul goboleed walba oo sameysma nin maaragtay generaal oo Ethiopia laga diraa loo diraa ninkaas baa maamula haddii wuxuu rabo maaragtay u sameey waayaan waxa la leeyahay maamul goboleedkan wixii kugu soo hobeynaya oo ka qaadaya marka qasab waxay noqotay in maaragtay waddankeena sida halka maaragtay Soomaaliyeed heerku hadda ku jira oo maaragtay uu tago taasina waxay sababtay inay dhalinyartii ay niyad jabto dhalinyartii Soomaaliyeed oo maanta siyaar kaliya markaan nidhaahno 1500 oo dhalinyar ayaa xabsiga ku jirta dhamaantood waxa lagu xidhay maaragtay waxyaabo yar yar iyo macna la'aan sababtoo ah dhalinyartii way niyad jabeen marka arkay waddankoodii oo 20 sano wax ka soo socdo jirin qofkii tagal leeyahay maanta waa la qarxiyay waa la dilay waxay dhalinyartii maaragtay ku qasabtay inuu nin walba maanta leefkiisa maanta wuxuu ku qanacsan yahay inuu iska sameeyo haddii maanta drugs inuu dheel garayo maaragtay meelaha ka galaan noqoto uu gelayaa hadday noqoto koox in la sameeyo iska gelayaa markaas su'aashan horta waxay tahay seen dib ugu soo celin karnaa dhalinyartii Soomaaliyeed iyo dhalinyartii Soomaalida ogaadeenaya anu waxaan hadda u arkaa dhalinyarta always social inay u noqon karto hormuud iyo tusaale loogu dayan karo dhalinyarta Soomaaliyeed oo dhan sababtoo ah waxaan jecelnahay horta annagu xornimo maanan arag waxa ilaa hadda waddan u hayno xornimadii baan weli arag laakiin qofku markuu xornimo arko uu waddankii maaragtay Soomaaliya oo dhan waxay naaminaba dawlad la'aan in la noolaan karo iyo xornimo la'aanba laakiin dhalinyarta always social waxaan aad iyo aad ugu soo dhaweynaynaa dhalinyar badan oo Soomaaliyeed baa joogta way ku mahadsan yihiin mar walba ay nagala soo qayb qaataan hadday dhan sport noqoto hadday dhan maaragtay shirarka naga noqoto xafladaha naga hadday noqoto waad nagala qayb qaadataan mar walba laakiin bal inaad qayb ka noqotaan ururka OWSU qof walba waa la soo dhaweynayaa qabiil laguma riixayo qolo laguma riixayo maamul goboleed ka timid laguma riixayo qof walba oo soo galay walaalaha naas oo soo dhaweynayaa OWSU siyaara haddaan gadaal lagu sii yar noqdo halganka Soomaalida ogaadeen horta isagoo nooma baahna inaga u baahan xaqiiqahaan haddii laga hadlo sababtoo ah qofka maanta OWSU siyaara ka tirsan markaad ku soo biirto 100 walaalada oo xitaa kuwa kula dhashay dig wadaagtaan kaaxiga oo mar walba kaaga dabqanaya maaragtay mar walba garabkaaga taagan wax walba uu dhacana qof la tirsanayo oo walaaltinimo iyo Soomaalinimo lagu tirsanayaa tahay laakiin qofku markuu badhalganka iyo dhalinyarnimadu banaanka istaago ayuu aad u dareemay cidlada waxaad arkaysaa hadda dhalinyar qolbu galaa maaragtay maalintii shaqada ka soo baxaa gurigu tagayaa uu seexanayaa aroortii uu ka sii kalahaya xaqiiq ahaan waxa ah haddii xididkaagu meesha maaragtay uu ka soo abti maadaadan garanaynin noloshaasi nolol kuma noqonaysa maanta dambe adigana midub baa kuu sheekaynoo marka dambe xabsi baad ku dambayn ama meelkan baad ka dhici ama waxa laga yaabaaba adhow dhaqankaagii iyo diintaadii iyo dadnimadaadii meel ku doorsoontay inaad tagto OWSU Seattle dhowr sare hadda halka jirtaa aniga ahaan gudoomiye afraad baan hadda ahay
waxaan aad uga mahadcelinayaa saddexdii guddoomiye iga horreeyada mudane jabad ismaaciil xiis cabdirasaaq tiiba iyo marweyda oo hadda ugu dambeysay dhammaantoodba meel fiican bay soo gaarsiiyeen heerka maanta oo way isu taagan tahayna iyaga soo gaarsiiyey insha allahna waxaan rajaynayaa halka hadda ay taagan tahay inaan hore uga sii wadi doono aniga oo ku tashanayn xooga ku jirta soomaalida ogaadeen iyo kuma tashanayo soomaali weyn xooga ku jira iyo maskaxda ku jirta dhalinyarta soomaaliyeed maanta siyaarad degan ayaa waxaan rabaa inaan maamul goboleedyada iyo qabiilka iyo communitiyada dhinaca iskaga soo horjeeda inaan midayno oo ku wada walaalowno maaragtay soomaalinimo waddankaasna waddan maaragtay maanta annaga keliya inoo taala maaha dowladdii soomaaliya meesha ku burburta halkaa bay ahayd meeshii maaragtay kow markay xoogaysatay inay caawiso oy dagaal iyo ciidankeeda iyo nafba u hurta halkaa bay ahayd maantana weli magacii soomaaliyeed baa sugayay waddanka maaragtay ay soo xareeyaan mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan leeyahay dhalinyarta soomaaliyeed korkaas waxaa laga yaabaa inaad waxyaabo kala yar aaminsantihiin oo isleedihiin ama OSU dhinacaad u riixaysaan fadlan ku soo hirta nagu soo biira qof walba oo maaragtay nagu soo biirana marka gudaha ururka u soo gala ayaad ogaanaysaa xaqiiq ahaan ururkani wuxuu yahay wuxuu ka hadlayo oo iga dhal noqda haddaan hadalkii ku dheeraan aad baan idin salaamaya asalaamu calaykum mudane faysal ibraahim sacabkiisi ma hayo waa madaxda nala socda hadal yar baa iga raacay xaqiiqo horto Soomaali baan ahay waan ku faanaa magaaladan anoo wax yar imaaday aad mataqaanaa waxaan aad maalin kasta dadka aan ku xisaabtami karo oo walaalahayga Soomaaliyeed cidna qabiil ma weydiiyo cidna wax uma sameeyo anigana igama sugayaan I really want to thank walaashay Shukri Colow oo qaybta hore fadhida howlo badan aan sameynay haddaysan ayada ahaan lahayn uma malaynay inaan ku guulaysan lahayn marka xubno badan oo jaaliyadda Soomaalida ka tirsan baa jira oon iyagu dadka soo hor istaagin oo la arkin laakiin gudaha ka soo dhisa dadkooda oo mataqaanaa heerka iyo guulaha gaarsiinana gaarsiiya aad baan igaga mahadcelinayaa mar kale maxaad tabaysin okay waa dhaanta waa idin samayn karnaa waxba nagu ahan maxaa kale okay I think you guys cannot decide so waa inii go-aaminaya ma ogtahay mudan Axmed oo lagu dalbaday haa
xornimada udirirka Soomaaliya waxaan u maleynayaa wiil yar hadda meeshaan joogay inuu dad badan qiiro geliyo maxaa yeelay waxa uu ka hadlayay waa wax dhab ah oo jira 2007kii ayaa waxaan joogay Muqdisho Itoobiyaanku markii lagu tuuro bab ama xabad lagu rido qof allaala qofkii eeriyada ka dhow way soo qabanayaan haddaad tiraahdo aniga ma ahan kii sameeyey kuma yaqaanaan waxay soo bixinayaan lacagta kunka shilina qof walba kun markuu keeno way isku qasayaan waxayna ku weydiinayaan lacagtaadii ka soo saar kama soo saari kartid waxay ku leeyahay anigu kuma kala aqaan marka saf ayay ku leeyanayaan dadka marka Soomaaliya waa mid meel kasto ay ka joogto dunida dacaaladeeda laakiin waxaa jira in aan qabno cudur ah qabiil taas bay nooga faa'iideysatay Itoobiya oo ay nagu faragelisaa aniga waxay leedahay waxa tahay qabiil hebel ninkaanuna waa qabiil hebel ninkan ayaa ka laandheeraysan wuxuuna rabaa inuu ku gumaysto marka hadduu ninkaan igu gumaysto walaalkeeya waxba ii dhibi maayo laakiin waxaa ka sii dhib badan nin amxaara ama tigreeya inaan u duloobo oo aan qaato dulinimadiis laakiin ninkaan Soomaaliyeed waa walaalkay waxba ii dhibi maayo waxaanu nahay dad walaalo ah haddii la fiirsho ayayda waxay noqonaysaa aniga eedaday abtiga wuxuu noqonayaa aniga abtigay waa dad iska dawareegaya wiil iyo seedigiis gabar iyo dumaashigeed waa dadkaas iska dawareegayaan nahay laakiin aniga ninkaan maxaarka waxba iima ahan waxaa waxii ah intiinaan meesha fadhida oo Soomaaliyeed midaas waxaa sii dheer waxaynu nahay dad isku diin ah oo hal diini ka dhaxayso waxaynu nahay isku hal luuqad marka walaalayaal yuqafku waa ma garanaya wuxuu ahaa gudoomiyaha oo yiri ururka lagu soo biiro si mataqaana aan u helno dad Soomaaliyeed oo midaysan waa arrin fiican laakiin umaleyn maayo Soomaalidu inay taas laga helayo qof walba waxba ka dhex guuxaya oo qabiil ah Allah naga daaweeyo hal mar aan iraahno aamin dibkaas Allah naga saaro qabiilka naga wada dhex guuxaya waxba ma kale in walaalayaal waxa weeye Itoobiya waxa naga dhaxeeyo dagaal qof kasta oo Soomaaliya waxa uu diyaar u noqdo inuu la dagaalamo Itoobiya hadda dhinacaan hadda kilinka ama Soomaali galbeed oo kaliya ma haysato Muqdisho madaxtooyada waxa fadhiya Generaal Itoobiyana oo Xasan Sheekh Maxamuud u taliya waxba kama aha madaxweyne waa maqaarsan dhinacaan Ismaaciil baa fadhiya Hargeysa mid baa fadhiya Puntland mid baa fadhiya Dhuusamareeb baa dhex fadhiya maalin weynta waxaan ka fiirsanay idaacadaha askari Itoobiyana ee xukuma ciidamada jooga Dhuusamareeb oo wax u yeelinaya dad isku sheegaya madax oo soo labistay oo sheeganaya inay matalaan dadka deegaankaas degan wax laga xumaado weeye walaalayaal aan u diyaar garowno sidaan iskaga dhici lahayn Itoobiya siiba dhalinyarada qof kasta qabiil uu yahay qofaan qabiil ahayn ma jirto qof walba qabiil uu yahay laakiin horta bal aniga inacmo waxba dhiba keenayso laakiin cadow naga sii daran baa jira mid annaga naga sii daran oo aan jiritaankaaga ogolay baa jira jiritaankaaga ogola laakiin kan jiritaankaaga ma ogolay Soomaalinimadaada wuxuu rabaa inuu ku baabi'iyo mid uu gaal ka dhigo mid uu gumaysto iyo mid uu laayo inuu ka dhigo waxaan bal inaan ku dheeraaday saadirkaynu barinow samawada daacada inaan helno mid Soomaaliya oo daacada oo ka saara dhibaatadaas inaan helno amiin dhahaya sunta ay u qoosheen saaxiib lamoodkan safka hayro Itoobiya qaramada midoobay lacag bay soo siinayaan Itoobiya safkana la soo gelinay wax loo way safarka hore laakiin ujeedada ay wataan baa ka weyn safka hayro Itoobiya saaxiib lamoodkan safka hayro Itoobiya Soomaalian cadowgii Soomaali kala dilay una kala dilay waxaan xasuustaa 96kii Xaaji Muuse baxa cabaar ku sii maqnaada maxamed khayra ka dabooda ina tirayo hubay wataan hoobiya loo rakibaa dadka waxaan xabadahay nooga keeni jiray islaanta lugtu gaar istaan Madiina waa buuxsamaya xabad cirbada lagu daaweeyo iyo wax lagu dhahay dadka
حبتها ما في عنا والله هي حبتها أكا وحي هيد وما لنا يستحضر هذا ترى دي توصل تذكر ولا يلا كلا ما هي وبالك تفتال تاسمعنا الوحي إن صومالي لدور قوي وانقفك سواهرين واحد مغلى يساني كي جماعات كسب حوالي دي ورياد دي لما يقانو واحد غيا وانا وقال حتى أنا شوية تكسر كرامين صحيح مرة إثيوبيا وعدد الكوبات صوماليا ومدن وادي مشيلة صوماليا اسكت طوبان أو شنت الجيس اسكت مارضو وادي مشيلة ما ربطه معايا الصومالي وضد كدوب وفوق هذا ما هو واحد رتابات كلام قوان وإترادنا على الصومالي وهو بلدا وعدد وجاجا مركز نك الصومالي هو بلدا هاي ما أنت بلدا بلودا جيو دعاء مايو halkaas marka maxaa ka baxay jaanis baa ka baxay dhinaca waa galmudug u dhaqaaqi maayo dhinaca waa muqdisho iyo beledweyne u dhaqaaqi maayo halkaasna koonfur baa naga jirta u dhaqaaqi maayo marka saas waxay u jirtaa danteeda ku jirta laakiin hadday aragto shanta Soomaaliya oo midaysan u malayn maayo inay hawaysanayso mana hawaysan karto assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Soomaaliya ana
يا دقائق شعبك لا تقرأ كل وقت إذا كان إسكاله لكن dhaqankii ka tagay dhammaantood unsano dhagaha durtayo wasabjuud booday dhaqaale la'aan dartii dhardhabahayo dhuuqaayo waxaan dheef lahay dhaqaaqilaysanoo doonaayo waxay dhacaan waayaan dhalinta waan dhaliilay dhabaal baan u diray dhulkii dhisaa qaba dhaqaame celis hoy dhisaa qaba dhaqaame celis waad mahadsantihiin anigana waa mahadsanahay شريف عبد الغالي everybody وحكي له عيالكم عليكم